dhammaan muwaadiniinta deegaanka Soomaalida khaasatan dhalinyarada waxaa loo geysiinayaa in dhawaan la qabanayo tartanka sawirka calanka deegaanka Soomaalida oo looga dan leeyahay xuska munaasabadda sanad guurida aasaaska deegaanka Soomaalida ee 23 January sanadka 2024. tartankan oo ka kooban 8 qaybood oo midkiiba 2 darajo ah waxaa loogu kala tartamayaa sidan soo socota: abaalmarinada darajada koowaad iyo darajada labaad. qaybta sawirka calanka gabdhaha oo lagu abaalmarinayo darajada koowaad 15,000 bir, darajada labaad 7,000. sawirka qaybta calanka ragga oo lagu abaalmarinayo darajada koowaad 15,000, darajada labaad 7,000 bir. qaybta sawirka dharka calanka ee gabdhaha oo lagu abaalmarinayo darajada koowaad 10,000, darajada labaad 5,000 bir. qaybta sawirka dharka calanka ee ragga oo lagu abaalmarinayo darajada koowaad 10,000 bir, darajada labaad 5,000 bir. qaybta sawirka calanka ee koox loo galo oo lagu abaalmarinayo darajada koowaad 20,000 bir, darajada labaad 11,000 bir. qaybta sawirka calanka oo dhaqanka muujinaya oo lagu abaalmarinayo darajada koowaad 10,000 bir, darajada labaad 5,000 bir. qaybta sawirka calanka ee sharaxaadda decoration gaari ama baabuur oo lagu abaalmarinayo darajada koowaad 10,000 bir, darajada labaad 5,000 bir. qaybta sawirka calanka ee sharaxaadda bajaaj oo lagu abaalmarinayo darajada koowaad 10,000 bir, darajada labaad 5,000 bir. yaa tartami kara qof kasta ku sugan gobolka Soomaalida dhammaan gobolada iyo degmooyinka. ka qayb qaata waa inuu ka weyn yahay 10 sano. ka qaybgala kasta oo da'diisu ka yartaa 15 jir waa inuu ogolaansho cad ka haysto waalidka ama mas'uuliyiintiisa. waqtiga soo gudbintay kama dambaysta. soo gudbinta sawirka tartanka waxay bilaabayaan 8 subaxnimo ee January 1 sanadka 2024. qofku wuxuu ku soo tartami karaa hal sawir oo qura oo u tartamaya hal wax tartameed isagoo iska diiwaangelinaya foomka yaala halka hoose ee videoga. xilliga kama dambaysta soo gudbinta sawirku waa saqda dhexe January 15 2024. xeerarka soo gudbinta sawirka: 1. tartamo wuxuu ku tartami karaa hal wax ama qayb oo kaliya marka laga reebo in shakhsigu sidoo kale qayb qaadan karo sawirka kooxda marka lagu daro qaybta kale ee ku tartamayay. 2. sawirka lagu tartamaya waa inuu noqdaa mid asal ah oo laga qaaday qofka tartamaya. sawir muujinaya qof kale oo aan ahayn qofkii tartamaya ama xayeysiis kale kama muuqan karo muuqaalka uu sawirka kooban yahay. sawirkan waa inuu ku xadgudbin astaanta ganacsi, xuquuqda daabacadda, xuquuqda akhlaaqda, xuquuqda garaadka ama xuquuqda gaarka cid ama qof kasta. 3. sawirka waa inuu noqdaa mid asal ah oo sinaba aan loo bedelin. 4. sawirka waa inuu noqon mid edeb daran, qaawan ama ka hor imanaya habdhaqanka saxda ah ee dhaqanka Islaamka ee Soomaalida. 5. ku xadgudbaha shuruucda tartanka waxaa laga saaray tartanka waxaana laga xayuubin abaalmarin kasta. waxaa laga mamnuucay inuu galo tartamada mustaqbalka. 6. tartamuhu waa inuu sawirkiisa soo gudbiyaa ugu dambeyn 15 January 2024. 7. soo gudbin kasta oo aan soo marin foomka asalka ah ee ku cad halkan hoose lama aqbalayo. sawirku wuxuu tartanka ka qaybgalayaa kaliya kolka lagu soo gudbiyo foomka rasmiga ah ee tartanka ee laga helayo geedka nabad. 8. natiijada rasmiga waxaa la shaacin 23 January 2024. dhammaan go'aanadu waa kama dambaysta. 9. guddigu waxay xaq u leeyihiin inay diidaan sawir kasta oo loo arko mid aan habboonayn ama aan waafaqsanayn xeerarka tartanka ee la sheegay. 10. tartamuhu markuu tartanka ka qaybgalo wuxuu raali ka yahay in sawirkiisu soo gudbiyo loo isticmaali karo qiimeyn iyo codaynba. 11. sawirka la soo gudbiyo wixii ka dambeeya deadline-ka lama aqbalayo. 12. abaalmarinta waxaa guddoomiya qofka guuleysta ama wakiilka uu soo doorto. 13. guuleystaha waxaa lagala xiriiri karaa lambar taleefanka gacantii uu bixiyey xilligii uu sawirka soo gudbinayay. haddii aan wax jawaaba laga helin 2 maalmood gudahood guuleyste cusub ayaa la dooran. ku guuleystii horena wuxuu waayay dhammaan xuquuqda abaalmarinta. shuruucda tixraaca tartanka sawirada calanka gobolada deegaanka Soomaalida: 1. tartanku wuxuu u furan yahay dhammaan muwaadiniinta deegaanka Soomaalida. 2. tartamo kasta wuxuu soo gudbin karaa hal sawir oo ugu tartamaya hal wax ama qayb oo ka mid ah 8 waxood ay tartanku ka kooban yahay kolka laga reebo qaybta sawirka kooxaysan. 3. sawirka lagu tartamaya waa inuu ka muuqdo calanka dowladda deegaanka Soomaalida. 4. sawirka waa inaan lagu gelin tartamo hore. 5. qabanqaabiyaasha tartanka waxay xaq u leeyihiin inay meesha ka saaraan soo gudbinta sawirka muujinaya ama la dareemi karo inuu muujinayo dhaqan kasta oo ka soo horjeeda halbeegyada iyo habdhaqanka anshaxa ee dadka Soomaaliyeed. 6. sawirka waxaa la soo raacin ciwaan iyo murti gaaban oo lagu sharaxayo dareenka calanka. 7. murtida sharaxaysa dareenka calanka waa inaanay ka yaraan 120 xaraf kana badnaan 600 xaraf. 8. murtida waxaa loogu talagalay inay bulshadu fahanto micnaha sawirka, sidaa awgeed waa in lagu qoraa luqad cad oo aan lahayn micno suuqi ah. 9. soo gudbinta waxaa la aqbalay 1 ilaa 15 January sanadka 2024 iyadoo loo marayo foomka soo gudbinta ee laga heli karo geedka nabad. 10. waxaa la aqbalayaa oo kaliya sawirka tayada fiican ee asal ah oo qura. faylka sawirka waa inuu noqdaa nooca ama qaabka PNG ama JPG
oon xajmigiisu ka weynayn 10 megabyte. 11 dhammaan sawirada ku tartamaya halkii waxa kolka hore u codeen bulshada oo dhan iyadoo la dhigayo baraha bulshada. 12 kolkay dhamaato codbixinta baraha bulshada oo lagu cabirayo tirada like iyo share sawirkii helo waxaa la soo saaray short listiga 5 sawir ee wax walba u sareeya. 13 kolka la shaaciyo short listiga wax walba waxa sawirada loo gudbin guddi madax banaan oo xulanaya sawirka koowaad galay iyo sawirka labaad galay wax walba. 14 guddigu waxay marayaan halaan ay ku eegayaan baaris waafaqsan shuruudaha soo socda. quruxda muuqaalka. B hal-abuurka. C murtidu sawir ka turjumayo calanka deegaanka Soomaalida. D hagarbaxa iyo tilmaanta saameynta calanka. 5 sawir ee ugu sareeya qayb kasta waxa lagu qiimeeyaa codeynta warbaahinada bulshada ugu horeyn marka laga eego shuruudaha 12 ee sare. 16 dhammaan sawirada la soo gudbiyay waxa la gelin mareegta shabakada caalamka ama online si ay dadweynuhu uga codayaan laga bilaabo 16 ilaa 17 bishii January sanadka 2024. 5 sawir ee qayb walba ugu codadka badan ayaa halka ka soo baxaya. 17 halku guuleystay iyo halka arinta labaad ayaa laga dhex dooran 5 isku soo hadhay wax kasta oo kamid ah 8 qaybood ee tartanka. 18 sawirada guuleystay waxa lagu dhawaaqay 13 January sanadka 2024 ee munaasabad xuska aasaaska dawladda deegaanka Soomaalida waxaana lagu soo bandhigay meel fagaaraha iyo waliba baraha bulshada internetka. Soo qayb qaata tartamuhu wuxuu xaqiijinayaa inuu yahay ama ay tahay mulkiilaha sawirka, ogolaanshaha waalidka ama mas'uulka haddii ilmo yar uu ku jiro, ama shatiga sawirka tartanka si waafaqsan shuruucda tartanka iyo xeerarka ilaalinta hal-abuurka. xuquuqdan iyo ogolaanshahan waxa ku jira laakiin aan ku xadidnayn ogolaanshaha qof kasta oo bini'aadam ah oo sawirka ka muuqda. B xuquuqdan xadidnayn wuxuu u siinayaa geedka nabad in sawirka la soo gudbiyo uu isticmaalo ujeedo kasta oo waafaqsan hadafka tartanka. C wuxuu haysanayaa xuquuqda daabacadda ee sawirka. geedka nabad wuxuu ku dadaalay inuu ku daro magaca qofka soo galay sawirka markasta oo isticmaalo meeshii uu arko inay ku habboon tahay. D qofku wuxuu ogolaaday inuu hadduu soo gudbiyo ama isku diiwaangeliyo lambar moobil oo been abuur ah ama ku meel gaar ah in loo arkayo khiyaamo oo laga saaray tartanka.